sida warbaahintu ay baahisay laguna daabacay wargeyska arrimaha ciidanka ee Defense Security Asia waxa uu sheegay in Israa'iil ay danaynayso inay hesho marin aad muhiim u ah oo ay ka howlgalaan ciidanka dhanka badda marinkaas oo la tilmaamay inuu noqon karayo magaalada Berbera ee Somaliland waxay doonayaan halkaasi inay geeyaan gujisyada ugu muhiimsan ee Israa'iil dhawaan wasiirka gaashaandhigga ee Somaliland Maxamed Yuusuf Cali ayaa 17kii bishan June 2026 wuxuu beeniyay wararka sheegaya in Israa'iil saldhig military ay ka dhisanayso Somaliland isagoo tilmaamay warar aan sal iyo raad lahayn inay yihiin macluumaadkaasi hase yeeshee wuxuu xaqiijiyay in Israa'iil ay ka qayb qaadanayso tababarka la siinayo ciidanka Somaliland oo booliiska qayb uu ka yahay sidoo kalena madaxweynaha Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in saldhig military oo Israa'iil ay leedahay hadda inuusan miiska saarnayn isla markaana mas'uuliyiinta Israa'iil uusan kala hadlin balse gabi ahaan meesha kama saarin kadib markii dhawaan waraysi uu siiyay warbaahinta Israa'iil in mustaqbalka Israa'iil ay saldhig yeelan karto inkastoo yiri taas waxay sii xoojinaysaa aragtida iyo iskaashiga dhanka amniga ee labada dhinac warbixinada hadda soo baxaya waxay sheegayaan Israa'iil inay qiimeynayso suuragalnimada in maraakiibteeda quusan nooca loo yaqaano Dolphin Class ay ka howlgalaan magaalada Berbera talaabadan ayaa waxay la xiriirtaa xaqiijinta dhanka amniga iyo saameynta Israa'iil ay doonayso inay ku yeelato biyaha badda cas sida lagu sheegay warbixinta wargeyska Defense Network uu daabacay isagoo soo xiganaya wariyaasha Israa'iil iyo warbaahintoodaba mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa si weyn u baaraya oo qiimeynaya fursad ballaaran oo ay ku heli karayaan joogitaankooda dhanka xeebaha Somaliland kadib markii ay sii xogeysteen xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Tel Aviv iyo Hargeysa Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka ku dooro baaritaan la hubo daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid muhiimadda istaraatiijiyadeed ee magaalada Berbera waxa ay ka timaadaa goobta ay ku taalo dekadu waxay aad ugu dhowdahay marinbiyoodka Baabul Mandab waa meel sanad kasta ay maraan 12% ganacsiga dhanka badda ee caalamka iyo qayb weyn oo kamid ah dhoofinta tamarta dunida qoraayaasha iyo falanqeeyaasha Israa'iil waxay aaminsan yihiin in haddii Israa'iil ay hesho meel maraakiibteeda quusa ay kaga howlgalaan geeska qaaradda Afrika in si weyn ay u yareyn karayaan waqtiga ay kaga jawaabaan weerarada iyo gantaalada Israa'iil ay kala kulanto Xuutiyiinta marka la dagaalamayo kuwaas oo ka howlgala xeebaha galbeed ee Yemen si toosna uga soo horjeeda Somaliland Israa'iil ayaa inta badan marka ay la dagaalamayso Xuutiyiinta dalka Yemen si ay kaga hortagto gantaaladeeda waxay adeegsataa dalalka ugu dhow si gantaaladaasi qayb dhexe loogu qabto laakiin tani waxay qayb ay ka tahay marka laga yimaado dagaalka Xuutiyiinta loolanka istaraatiijiyadeed oo Israa'iil ay doonayso inay isku ballaariso xeebaha iyo sidoo kale wadamada kale xuduudahooda warbixintu waxaa sidoo kale lagu sheegay in Israa'iil ay ka walaacsan tahay badda cas inay isu bedelayso jihad dagaal oo isku xiraysa Gaza, Lubnaan, Suuriya, Ciraaq, Yemen iyo saameynta badeed ee dowladda Iiraan Israa'iil kaliya ma aha Mareykanka, Ruushka, Shiinaha iyo dowlado badan ayaa si weyn u daneynaya inay saameyn ay ku yeeshaan biyaha Baabul Mandab dowlado badan waxay isku dayeen inay saldhig ay ka sameystaan magaalada Berbera iyo deegaano kale oo Somaliland ka tirsan mas'uuliyiinta Somaliland faahfaahin kale oo dheeraada ma aanay bixin haddii maraakiibtan loo ogolaanayo halkaasi inay soo gaaraan iyo in kaleba macluumaadyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa wax walba oo ka soo kordhay insha Allah